بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idin siinayaa update-ka xaaladihii ugu dambeeyay ee soo kordhay cudurka COVID-19 waxa 24 saacadood ugu dambeeyay la helay 34 qof oo positive ah rag waxa ah 26 haweenna waxa ah 8 dadka meelaha ay kala joogaan banaadir waxa jooga 27 puntlandna waxa jooga 7 dadka laga helay da'dooda marka inta u dhaxayso hadaan qiyaasta idin siino waxay ka yartahay da'dooda ilaa 20 waa 5 markale waa inaan ku dadaalnaa hadii Ilaahay yiraahdo sidaan u xakameyn lahayn cudurkan in mar walba gacmaha lagu dhaqdo saabuun iyo alcohol qof walba wuxuu heli karo ku nadiifsan karo ugu yaraan 20 second iyo ka badan in la iska ilaaliyo meelaha ciriiriga ah iyo fadhiyada badan oo dadka isku dhow yihiin in banaanka bixidiisa la iska yareeyo hadii aysan ahayn muhiim in hadii qofka uu arko calaamadihii cudurka la tilmaamayo markastana la tilmaamo inuu wacdo nambarada loogu talagalay freega ah si loo siiyo wacyigelin loo dhageysto oo ula hadlo qof dhakhtar qofka gurigiisa inuu isku xakameeyo dadka waaweyn cudurrada qaba faafa cudurrada chronic ah qaba in xanaano gaar ah la siiyo oo aanan loo dhawaanin oo laga ilaaliyo in qof cudurkii looga shakiyo ama qabo uu tago yacni in gacmaha aan la iska salaamin aan la isu haanyoonin la is ilaaliyo waa aad iyo aad ay muhiim u tahay cudurka waa cudur sii fidayo maalin walba Ilaahay dhibtiisa ha naga haayo inaan ku dadaalno bulshada meel allaala meeshay joogto in ay diyaar u tahay inay yacni iska xakamayso oo ay dhageysato talooyinka takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka ee cid allaale cidii u igman inay ka tala bixiso ama gawaaniso dadka sidii looga hortagi lahaa cudurkan sidaad la socotaan waa bil Ramadaan guriga in lagu cibaadeysto in ma aragtay bixidda la yareeyo in mar walba qofka uu ka taxadaro caafimaadkiisa in lagu dadaalo waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu naga haayo dhibkiisa cudurkan waa idin wada salaam alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh